أحبتي في الله waxaan idin soo gudbinayaa codolaalayaal maskaxdaada ayaad waxaad gashanaysaa tiro amaba cadad lacag ah ayaad gashanaysaa maal ayaad gashanaysaa markaad qalbigaada aad gashato inta aadan seexanin 100 jeer ayaad dhikrigan aad akhrinaysaa kabacdi waad seexanaysaa waaga markuu bariyo wixii ka bilowda laba mid ayaa ku qabsanayso in cadadkii maskaxda aad gashatay aad hesho waa kow midda labaadna waxa weeyaan in asbaabtii cadadkii aad maskaxda gashatay aad ku heli lahayd aad ma garanaysaa aad hesho miyaan iska leeyahay wallahi wabillahi watallahi laba xaalad ayaan kala kulmay laba xaalad waxa weeyaan mar Allah subhanahu wa ta'ala qalbiga gashtay 45,000 oo shilin Soomaali ah ma helay mise ma helin videogan ayaad kaga bogan doontaan markii labaadna markaan sameeyay qalbiga waxaan gashtay 20,000 oo dollar in aan helo ma helay mise ma aan helin videogan ayaad kaga bogan doontaan رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله كسو دوادا الشيخ ريمي channel أحبتي في الله kusoo dhawaada video cusub iyo muuqaal cusub cawada waxaan idin hayaa video maraq iyo marqaati leh aadna muhiim u ah aadna idin farxad gelin doona ayaan idin wadaa si aad u ogaataan video cusub inuu yahay taariikhda aan idin sheego caw idin la hadlayo taariikhda waxa weeyaan waa 21ka bisha May ama bisha shanaad 2023 taas ayaa ma garanaysaa idinku cad inuu video cusub uu yahay أحبتي في الله waxaan idin soo gudbinayaa codolaalayaal maskaxdaada ayaad waxaad gashanaysaa tiro amaba cadad lacag ah ayaad gashanaysaa maal ayaad gashanaysaa markaad qalbigaada aad gashato inta aadan seexanin 100 jeer ayaad dhikrigan aad akhrinaysaa kabacdi waad seexanaysaa waaga markuu bariyo wixii ka bilowda laba mid ayaa ku qabsanayso in cadadkii maskaxda aad gashatay aad hesho waa kow midda labaadna waxa weeyaan in asbaabtii cadadkii aad maskaxda gashatay aad ku heli lahayd aad ma garanaysaa aad hesho haday shaqo ahaan lahayd hadii ma garan adiga asbaab baan ku dhahay asbaabtii tiradii ama cadadkii maskaxda aad gashatay qalbiga aad ku qabsatay aad ku heli lahayd ayaad ma garanaysaa aad helaysaa miyaan iska leeyahay miyaan idin soo gudbinayaa maya wallahi wabillahi watallahi laba xaalad ayaan kala kulmay laba xaalad waxa weeyaan mar Allah subhanahu wa ta'ala waxaan weydiistay waxaan qalbiga gashtay 45,000 oo shilin Soomaali ah ma helay mise ma helin videogan ayaad kaga bogan doontaan markii labaadna markaan sameeyay qalbiga waxaan gashtay 20,000 oo dollar in aan helo ma helay mise ma aan helin videogan ayaad kaga bogan doontaan wallahi thumma wallahi qof kasta wuxuu u cibaadaysanayaa ilaahay uu uga baqaya wixii amal saalix ah uu la yimid inuu ilaahay ka aqbalo haddaan in yar been ah aan sheego amalkayga ilaahay ma aqbalo laakiin se maxaanba ii sheeg adiga sidaas dhan aan ma garanaysaa isugu habaarayaa itusi itaabsi cadayman oo qoraal iyo cod ah ayaan idin soo gudbinayaa insha Allah bidnillaahi alkariim haddii aad ka hesho videogan waan boogayn inaad ka heli doontide like sidii roobka inooga yeel subscribe na soo dhaha nagu soo biira
gambeelkana furta si ay idin soo gaaraan wax kasta cusub aan idin soo gelinayno insha Allah sheertana ku qabo si aad u hesho الدال على الخير كفاعله أحبتي في الله أنتان ذكري قاسي بقولك جر لغا أخرينايو aan gudagalin in yar videogaanan idin tusaaya waa idinka dabageynayaa si fiican ila socda iidii soonfur hadeertaan la soo dhaafayay ayaan magaranaysaa videogan aan duubay subaxii waxay ahayd zakaatul fitriga la bixinayay intaan salaada iid aan la tukanin ayaan videogan duubay videogan wuxuu ahay ummad Soomaaliyeed ayaa waxay soo baxsadeen zakaatul fitriga inaan dad masaakiin ah aan u siiyo dadkii masaakiinta ahay ayaan meel isugu keenay kabacdi videogan waxa dhacday arintan ayaa dhacday xibbatii fillah videogan aad arkaysaan idinma tusaayo waxyaabaha aan qaybinayo dadkaas masaakiinta ah meeshaas buuxaana idinma tusaayo laakiin haddii aad maqlaysid anug oynayo ma maqlaysaa anugaas oynayo waaye waxaan rabo inaan idinka dabageeyo axibbatii fillah anugaas oynayay markii waxa aan dhameeyay ayaan weydiiyay hooyadiisa markaas aan waxaas qaybinayo waxaan isdhahay ii sheeg anug waa xanuunsan yahay amaba waxaan isdhahay ilmaha markii wax laga qaato ama wax loo diido way ooyaan intaas kali ayaan isdhahay waan weydiiyo waxaan dhahay anugan muxuu la oynayaa hooyadiisa waxay dhahday arin aad aan u la yaabo waxay dhahday wiilkan caana ma haysto xalayna gaajo ayuu ku seexday saakana waxba meel kuma aan ogeyn Allah subhanahu wa ta'ala adiga ayuu 4 shoodood oo bariis ah inuu ka soo dhiibay waan ku faraxsanahay bay tiri hadeertan ayaan waxaan rabaa inaan biyo ugu kariyo aan kuleelkiisa soo qandac ah aan siiyo ilmaha kaleenta iyo isagabo arinkii waa isaameeyay aad ayaan u la yaabay dabagal ayaan ku sameeyay waa dad qaxooti ah waaye buushash ay degan yihiin waxaan dhahay waxaan yacni waa kormeeray xogtoodan wareystay iyagii qaar kamid ah ayaan wareystay waxaa la ii sheegay walaalayaal dadkan waa qaxooti dadkii rasmiga ahay waaye loo baahnaa in loo gargaaro waxaan dhahay maxaa wax ma heshiin miya waxay dhaheen maya anaga baadiyaan ka soo guurnay xoolaheena way dhamaadeen waxay dhaheen aad baan u dandaranahay qaxooti ayaan nahay waa soo qaxnay cidna nooma maqna cilna nooma qodna meeshaan buushash aan ka dhisanay waxbaa la idin siina ayaana la yiri sawir ayaana laga qaaday kabacdi waxaana la dhahay kaar ayaa la idin siinayaa oo bishii lacag ay idinku soo dhacayso simkaar ayaa la idin siinayaa bishii lacag ay idinku soo dhacayso qofkiiba $15 ha bixiyo ayaana la dhaheen $15 waxaan cunno ayaan la'nahay $15 meel ka keen ayaan weynay dadkii gudoomiyaasha ahaa kaararkii waxay ka iibsadeen qof kastoo awooday $15 ka badan bixin karay ayay ka iibsadeen dadka qaar dadka laga iibiya qaar guryo ayay leeyihiin qaarkood bajaaj ayaa u socoto mooto bajaaj qaarkood dahab ayay wataan faraanti dhego silsilada ayay leeyihiin iyaga ayaa laga gadgatay bishii lacag ayaa ugu soo dhacdo haddana bil kasta markii lacag soo dhacdo $15 ayaa laga goostaa dadkani waxay kaarkii u heli waayeen $15 dartooda ay u heli waayeen madaxii ayaa iga weynaaday dadkii waxay helaan malaha dadka qaar subaxdii hore way tuugsi tagaan dadka qaar way xishoonayaan ma tuugsadaan
waxaan ka soo tiriyey ummadii qaraab tagta way qaraab tagtay kuwa aan qaraab tagin oo sida canugii oynayay hadeertan kamid ah arkayseen oo kale konton qoys ayay noqdeen anigoo fakarayo asxaabtaada miyaad u bandhigtaa kontonkan qoys miyaad ma garanaysaa calaa qoyskii bishii $100 ayaa ku filan oo raashin loogu iibinayo haddii asxaabtaada awliyada aad la kaashato bishii kontonkaas qoys min $100 yacni konton qofood oo min $100 baxsado lama waayi laheene ii sheeg adiga maxaa samaysaa anigoo arrinkii ku labalabeynayo ayaa dhacdo labaad aan la kulmin haddana dhacdo labaad waxay ahayd islaan waayeel ah oo aan ku qiyaasay 82 jir xitaa indhaha toos wax ugu arkayn ul wadata ayaa canug dusha u saarneed way dhacday way kuftay marka ilaahay wuxuu ila kulansiiyey mooto ayaan saarnay markay dhacday way kici weysay mootadii xitaa intaan taakeeyo waan ka gaari waayey mootadiiyo istaaran amaba kacsan ayaan magaranaysaa waa tuuray maamadii ayaan kiciyey geed hoostiisa ayaan fariisiyey waxaan dhahay gabadhaada ilaahay ma ka baqaysa miyaa sababta cunugay kuu soo saartay maxay tahay oo hadeertaana wadadan adiga ay kugu soo fasaxday markaasay hadalay ii sheegtay aad buu ii gadiyey waxay tiri gabar aan dhalay iima joogto wiil aan dhalan iima joogo canugtaan dushayda saaran aad u jeedid waan soo kireystay bay tiri keligayga haddaan qaraab tago ummadda wax ima siinayaan gabar ayaan soo kireystay waxna waa u gadaa xabadoo rooti xabadoo sambuusaan u gadaa waxay dhahday habeenkii lacagta aan soo helo $2 $3 ani aan soo helo $1 iyo bar ayaan magaranaysaa intaan hooyadeeda aan siiyaa mararka qaarkood cunugta waxeeda leenba soo helaa mararka qaarkood wax inoo kala go'o ayaan magaranaysaa aan helaa markaas ka bacdiyaan tumun hilib ah iyo magaranaysaa haaf caana ah galaas haafkiisa farow ayaa la yiraahdaa farow caane ayaan kusoo iibsadaa ayay dhahday waan yaabay kaligaa miyaa mas-uumad kale saas ahaa jirto waxay dhahday ilaa iyo 9 dumar aan nahay weelaawayaal ah qaarkood wax ma dhalin qaarkoodna awlaadooda abaartii mar ka dhici jirtay goboladan koonfurta ayay magaranaysaa la-deen ii sheeg adiga waa 9 hooyo oo aad u tabar daran tan ugu roonbatan ay tahay kuwa kaleenta maba tuugsi tagi karaanbo yacni waa way fariisteen iyaga waxay soo helaan ayay wax iskaga siisiyaan waxaan isiri markaan maroor dilaacay wax kama qaban karo ilaa cunugtan yar ay soo qaadatay danteeda ku jirto haddii kale waxba maba helaysabo waxaan isiri haddana 9kan maamo 9 qof ahlu khayr ah min bishii $3 leh haddii la dhaho waa $90 oo ii sheegay caanahooda iyo hilibkooda meel u saara miyaad weydiisaa anigoo midii haddana tii hore la sii yaaban ayaa tan iigu darsantay meel iskala qaado ayaan waayey youtube-ka waxaan wax u soo gelin waayey youtube-kayga video cusub qofkii ila socda ayaa ila socdo video cusub waxaa ugu dambeysay subaxdii iida barnaamijka zakaatul fitriga aan qaybinayay ayaa iigu dambeysay inta kale aad aragtaan waa video mar hore aan soo duubay oo aan ku soo celiyay le waay kan maalinkii iida ahayd kan ayaa hadeertaan xigo oo cusub waa fahanteena u maleynaya tiina waa iigu darsantay asxaabtayda midaan u sheego ayaan waayey war 9kan maamo soo ogaada miyaad dhahdaa mise war kontonkaas qoys gaajada u dhimanayso yaa soo ogaada miyaad dhahdaa maxaad dhahdaa anigoo kalaba labaynayo waxaa maqli jiray 2 daran mid dooro ayaan maqli jiray 3 daran mid dooro ayaa igu dhacday arintan kaleente aan hadeertan aan soo wada ila dhageysta ayaa iigu darsantay arintan kale ayaa iigu darsantay aad ayaan u wareeray mid aan ku tooso ayaan waayey aan idin soo bandhigo wallahi thumma wallahi gabar ahlu khayr ah ina maxamuud shirwac la yiraahdo asxaabtayda ii sheeg ahlu khayrka kamid ah igu xiran asxaabta igu xiran kamid ah mar kastana hiil iyo hoo ila garab taagneed ayaa habeenada kamid ah riyo ayadoo soo weydiinayso soo wacday inay Masar joogtay ayaan u maleynayaa markaas
iyo Cumaan joogtaa ma aqaani labadan mid ay joogtay ma weydiinin laakiin saasaan jeclahay waxay tiri riyadii hadda kora ii sheegtay way furantay waxay ahayd idinma sheegayo laakiin sariye kale ay weydiinaysay riyadii way weydiistay waan u sheegay markaasaan waxaan leeyahay walaalay saddex arimood ayaan la daalaa dhacayaa midaan ku toosana waan la ahay mideen ku toosaa saddexdii aan u sheegay laba idinkaaba idin sheegabo midii saddexaad ayaan magaranaysaa idin sheegaya marka idin waxay idhahday intaan idin sheegin saddexdaba waa saddex option way dhahday qofka bani aadamka ah ahlu khair way isku mid ma aha qof ayaa laga yaabaa aad muraad u leh saddexdaba inuu ka qayb qaato ayaa laga yaabaa qof laba inuu ka qayb qaato ayaa laga yaabaa qofna mid inuu ka qayb qaato ayaa laga yaabaa waxa sameeysaa bay tiri saddexdaba soo gali mid kastana lambar u yeel kii maamooyinka qofkii ka ii sheeg adiga maamooyinka kooda lambarkaas waaye dheh qofkii bishii wax u soo tuuri kara ha u soo tuuro midda kale qaxootiga aad sheegayso kontonkan qoys qofkiiba ka qayb qaadan karo lambarkaas waaye dheh midda saddexaad qofkiiba ka qayb qaadan karo lambarkeeda waa kaas dheh ayay dhahday xaqiiqatan fikirkeedii ayaan qaatay markaan fikirkeeda aan qaatay cawada ayaa ilaahay i waafajiyey waxaan la hadlaayay waxa waaye isbuuc ka hor waaye isbuucii hore ay ila soo hadashay haddeertaan ayaa ilaahay soo waafajiyey waayo hadalka xitaa waa qoran yahay xilliga la dhahayo mar kasta inaan soo geliy waa rabaa laakiinse jaanis uma aan helaynin maanta ayaan jaanis aan u helay insha allah marka midka saddexaad idinka dabageynaya habeenada ka mid ah anigoo hurda la maraayo taqriiban 7 saac 8 saac meelahaas adiga 7 saacna waa la dhaafay 7 saac bar waa la dhaafay 8 saac lama gaarin waxba dhinna ayaan waxaan ku soo toosay qof dumar ah ooynayo alla rabbiyow alla ilaahayow ay leedahay meeshii la iga jira ayaan fahmi waayey madaxan kor u soo qaaday waxay ila noqotay dhinaca wadada ay ila noqotay wuxuu ilaahay iiga dhigay qof dumar ah la faraxumaynayo ayuu ilaahay iiga dhigay wadada la geystay ayaan u maleeyay hub ma haysto qof xilligaasi wadada dhexdeeda wax ku faraxumaynayo waa qof hub wata dabcan waa sidaan iska dhaadhacsiiyey hubna ma wato qofkanna hebelow isoo gaar ma laha alla rabbiyow alla ilaahayow waxaan ahayn ma maqlo inay ooynaysana waa dareema qof dumara inay tahayna waa maqli hayaa toosh ayaan wataa tooshaan soo qaatay ul ayaan wataa marka usheedaan soo qaatay albaabkii ayaan soo furay waxaan isiri dhinaca wadada tooshka bul kusi waxay u malaynayaan ciidan roondo wado ay u malaynayaan gabadhaasi ha laga tago ama ha laga cararo ayaan isiri tooshkii ayaan bul siiyey sana u dhaqdhaqaajiyey ooyintii way yaraatay xoogo marka waan ku soo socdaa marka waxaan maqlay marka dumar kale codkooda ayaan maqlay waxaan isiri sad u malaynaysa meesha ma ahee dumar ayaa meesha ka hadlaaye bal u dhawow oo tag ayaan isiri waa tagay tooshkii ayaan magaranaysaa aan wataa tooshka naga damiyaa lay dhahay waa damiyey maxaad ahaydeen nabad lay ma jirto waan dhahay haa nabad ayaa jirto gabar ayaa fool naga ah ayaa lay dhahay saacadan baabuurna ma jiro mooto bajaajna ma socoto dhaweeyana ma laha iyagana gaari ma haystaan waa ii sheeg adeeg wadada dhexdeedana waay way soo wadeen way socon weysay fooshiya ku adkaatay meeshii ay u fariisatay waxaan la socoto laba dumar ah ninkeedina ma joogo safar ayuu jiraa cid kaleento usoo gurmanaysana ma laha anigina wax uma qaban karo isbitaalna meesha uma dhowa umulisana meesha kama kasaayay gabar fool ah waay markii dambe gabadhii fool waayay dhaheen
ilmihii kafkuu soo galay say dhahayaan waaye xanuunka la dareemayo iyo foosha waxay tahay hooyo unbaa taqaano ama gabar dhashay unbaa taqaano aniga waa iska sheegayaa oo keliya wixii la dhahay unbaa iska sheegayaa xanuunkaasi ma dareemi kari aniga طيب maxaa la samaynayaa waayahay umulisooyina meeshaan ah MCH ayaa horteena ah MCH kaasi ayaan rabnaa inaan u wadno intay binoo fariisatay garabkiina Allah galaan dhahay anigoo uga xun waxna u qaban karin ayaa iskaga soo laabtay ilaahu adaam hadladii gabar la faro xumeynay ahayn ayaan isdhahay waayahay waa iska imid waxaan isku dayay gabadhii inaan u kuurgalo aan wareesto aan dabagalo waxaana la dhahay xoogoo way noo socotay markii ka bacdi MCH aan la gaarin wadada ayayna ku dhashay nasiib daro gabadhii way isjartay ilmihii yaa jaraa la yidhi ugub ayay ahayd kaaga daran ugub ayay ahayd inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun markaasaan waxaan go'aansaday haddana anigoo laba murug i haysato ayaa murug saddexaad iigu darsantay waxaan isiri war asxaabtaada ma weydiisaa dad badan oo dhibaatadan maraysa ayaa jirto gaadiidna aan lahayn gaarin aan haysanin mootobajaajin aan heli karin ayaa ay jirto waqtigan oo kale iyo waqti kale ka sii daran ayaa lagu soo boodi karaa hadda haddii maanta ambulance oo fi sabiilillah u shaqaysa aad hayn lahayd soo kuma aad qaadi lahayn ayaa i gashay ambulance haddii mar la helo qofkii dhaqaalaha lahaa waa loogu gargaari karaa qofkii dhaqaal la'aanta ahaana waa loogu gargaari karaa marka waxaan isiri dhibaatadana way dhacday nafaa bixi kartabo gabadhii way dhashay way nabad dhashaa la yiri ma sha Allah ilaahay wuxuu siiyay wiil ayuu siiyay laakiin way isgoysaa la yiri dhibaatadaas darteeda baabuur dartiisa ayayna saas u noqotay ninka waxaan isiri asxaabtaad waxaan weydiiyay anoo waxba haynin asxaabteeda aan u soo gudbinin ayaan waxaan la hadlay bari emailsaan la hadlay waxaa la yiri ambalaasta midda originalka ah waa 16,000 ayaa lagu helaa aliskeeda cusubkeeda waa qaali mid kale waxaa jirto gacan ku samays ah gawaarida nooha la yiraahdo ayaa la iibinayaa 9,000 ayaa lagu iibinayaa kunkana waxaa loogu diyaarinayaa ambalaas ahaan ayaa loogu diyaarinayaa 10,000 ayay ku imaadaa midda originalka ahna waa 16,000 midda gacan ku samaysta ahna waa 10,000 la yiri ayadoo cusub midda gacan ku samaysta ah ayadoo cusub waa 9,000 kunkaasna waxaa la yiri ii sheeg adiga wixii lagu diyaarinayay iyo jid markeedii waaye ayaa la yiri marka anigoo labadii hor la daala dhacayo 50kii qoys meel ah meelna 9kii maamo meel ah ambalaastan ayay u darsantay waxaan isiri asxaabtaada 160 qofood min $100 ay baxsadaan waaye sidee yeesha waanoo wareersan gabadhan ilaahay khayr ha siiye ina maxamuud shirwac ayaa waxay dhahday saddexdaba soo gali mid kasta lambar gooniya u yeel kan waa kii ambalaasta dheh kanna waa kii magaranaysa qaxootiga dheh kanna waa kii maamooyinka wilaawayaasha ahay way dheh saas umad ugu kala sheeg qofkii saddexda ka qayb qaadanaya ka qayb qaato qofkii laba ka qayb qaadanaya ka qayb qaato qofkii oo hal ka qayb qaadanayeen halkaas ha ka qayb qaato ayay idhahday sidii ayaana magaranaysaa ay samaynayaa lambaradan meeshaan ku qoran ayaan idin sheegayaa insha Allah biidnillaahi alkariim lambaradan meeshaan ku qoran midka koowaad waxaan siinayaa ambalaasta waxaan rabaa 160 qofood min $100 ilaahay u baxsadaan qofkii koowaad haddii magaranaysaa uu jiro oo inala hadlaayo lambarkaas uu inoo soo hagaajinaya waa kayga caadiga ah waa 558 Abdulqaadir Sayid Ibrahim ayaa ku soo baxay EFC idhab waa uu leeyahay insha Allah waa kii ambalaasta waan ka gudubnay kii qaxootiga ayaa ku soo haray midka qaxootiga waa midka meeshan ku qoran isagana waxa weeyaan waa furaha 2561 magac ku soo baxayana waa Cabdinaasir Xaashi Shire isaga idhab ma laha EFC ayuu leeyahay waa qaxootiga 50 qoys insha Allah oo qofkiiba qoyskiiba $100 bishii yani lagu nooleyn lahaa kii labaad waa u baxay midka saddexaad ayaa ku soo haray waa midka meeshan ku qoran waana kii hooyooyinka
wiilaawayaasha ahay oo ma garanaysaa $90 ilaa $100 ay ku kacaysaa waa cadkoodii iyo caanahooda insha Allah cid kaleente aan ma garanaysaa loogu dhiibaynin aniga ku maamuli doono biidnillaahi alkariim lambarkana waa kana waa 2526 hal kale 30 49 10 asagana EVC waa uu leeyahay dahab ma laha saddexdan lambar ayaad inoogu soo xiriiraysaa midka koowaad waa ambalaasta midka labaadna waa qaxootiga midka saddexaadna waa maamooyinkii wiilaawayaasha ahaa haddaba videogeena ayaan u guda galayaa mar waxaan idin sheegay mar 45,000 aan ii sheeg adiga madaxa ku qabsaday ama qalbiga ku qabsaday inaan helo ma helay mise ma helin ayay ahayd waan helay 45,000 shilin Soomaali ayaan u baahday habeenkii intaanan seexanin ayaan sameeyay surad ayaan ka hormariyay boqolkii jeer ayaan magaranaysaa magacii alle ayaan akhriyay maskaxdeeda ayaan mablaqaas ku qabsaday amaba cadadkaas ku qabsaday 45,000 waa soo dhaqaajiyay aniga 45,000 waxaan ka helay ama Allah subhanahu wa ta'ala iigu sahlay meel jaad lagu gadayo xirajaad la dhaho aniga oo marayo ayaan lacag laastig ku xiran oo kusaan u kuuskuusan ayaan arkay ileen wax 50,000 gaaray ma aha waa 45,000 shilin Soomaali laastig ayaa ku xiran way kuusneed markaan arkay waa naxay waa ku istaagay dhinacyada iska fiirfiiriyay marba haddaan arkay qof dhig ii dhehaynin qofna ii jeedin aan arkay lacagtii waa qaaday qof lugta ii sheeg adiga wax sameynaya isaga waa isboojiyay qof lugta wax ka sameysanaya iska dhigay waa qaaday jiira ayaan la galay waa tiri 45,000 waay oo wallahi 1,000 shilin aan ka dhinnayn 1,000 shilin aan zaid ku ahayn xalay ayaan soo xasuustay marka inaan xalay Allah subhanahu wa ta'ala aan bariyay in cadadkan maskaxda ama madaxa aan ku qabsaday maanka aan ku qabsaday Ilaahay wuu ii sahlay maalinkaas wixii ka dambeeyay waan ilaaway Allah subhanahu wa ta'ala shaqo ayuu ii sahlay igaga kaafiyay in ma garanaysaa 45,000 iyo qalbiga aan ku qabsado waxay socotaba waxaan soo xasuustay bishii 9 2022 ayaan soo xasuustay waxaan isiri warniyahow hadda ka hor Ilaahay wuu ku sahlay 45,000 oo shilin Soomaali ah dollar maskaxda ku qabso dollar يعني عدد مسكحة ku qabso kabacdi wixii aad akhri bal haddana aad aragtidee laakiin tookadan uma baahneen Ilaahay ayaan imtixaamaya tookadii hore waan u baahnay Allah subhanahu wa ta'ala wuu ii sahlay laakiin tookadani Ilaahay ayaan imtixaamaya si aan idinku soo gudbiyo wixii aan tijaabiyay aan qoro aan idin soo gudbiyo suuradii markaas aan akhriyay suurad kale ayaan ku daray kabacdi 100 jeer ayaan dhikrigii akhriyay maskaxda waxaan ku qabsaday $20,000 hadda waa $20,000 weligeyga inaan arka iska dhaafay xataa kuma riyoonin $20,000 Ilaahay bal imtixaan tookadan $20,000 maskaxda ku qabso akhri kabacdi bal aragtidee meeshaad ma garanaysaa wax ka heshid ani waa yaqiinsanahay inaan helayo ilaa hadda ka hor aan tijaabiyay laakiin tookadani edeb dare iga tahay oo imtixaan Ilaahay imtixaamayo ay iga tahay qalbigiyaaba xag u weecan way mooho qalbigiyaaba imtixaan waayebo ilaan qalbigiyaaba dhaho Ilaahay imtixaan Ilaahay ma la imtixaama Ilaahay waxba la warsadaa baahidaada waa la warsadaa laakiin Ilaahay lama imtixaamo haddii Allah subhanahu wa ta'ala aad imtixaan asna waa ku imtixaamaya $20,000 waan helay seen ku helay waad yaabaysaa wallahi waad yaabaysaa cadayn ayaan idin soo bandhigi doonaa $20,000 waxaan ku helay mobilkayga accountkiisa ayaa waxaa ku soo dhacday $20,000 2,000 aan u maleeyaa waa yaabay
markii masaajidka aan waday ayay ahayd waxaan leeyahay masaajidkii miyaa lagu soo diray bal iska sug waa lagu soo hadli doonaaye qofka kula soo hadlaayo ii sheeg adiga waa masaajidkii lagu leeyahay amaba si un baa lagu dhahayaa iska hay 5 maalmood ay ila joogtay amaba aan hay 5 maalmood ayaan hay wax soo wacaayo ma arkin telefoonada habeenkii waa damiyaa laakiin markaan ma aan daminin si la ila soo xiriiro darteeda wax ila soo xiriir ma laha 5 maalmood markaan hay maalinkii lixaad ama maalinkii shanaad inay aan jeclahay ayaa la soo wacay qof ayaa soo wacay wuxuu leeyahay Abduqaadir Said Ibrahim adiga miyaa ahaa walaalo macaano lacag ayaa lagu soo qalday mucjizada meesha ka dhacday lacag ayaa lagu soo qalday $20,000 lacagta ayaa rabaa inaad soo celisid bal marka hore lacagta si qaldan kuma imaanin lambarkayga oo sax ah magacayga oo sax ah account-kayga oo sax ah ayay ku timid waan awoodaa inaan dhaho waxba idinka ma arkin aniga ilaan wax qaldan ma wato wax sharci ahaan wata WhatsApp-kii ayaa la iigu soo tuuray ii sheeg adiga WhatsApp-kii ayaa la iigu soo tuuray cadeymihii waxaa la leeyahay waa lagu soo qalday walaalow gabar naafa ayaa iska lahayd sanway bal marka hore aan idin tuso lacagtii warqadii ay iigu timid magacayga iyo account-kayga iyo taariikhda waxay ahayd bal aan idin tuso marka hore taariikhda aan idin tuso taariikhda waxa waaye 12 bisha 9 2022 waad u jeedaan طيب account-kayga waa kaasa account number waxa weeyaan waa 38 si fiican ila soco magacayga fiiri marka customer name-ka bal fiiri Abdulqaadir Said Ibrahim Adam Rimi soo ma jeedaan Rimi xitaa naanestayda meeshaas way ka muuqataa markhaati ka ahaada okay amount-iga imaw marka wakaas $20,000 ma jeedaa amount-iga waa $20,000 yay ka timid qof la yiraahdo Cabdinajiib Cabdisalaan Maxamuud ayay ka timid bal imtixaankaas fiiriya imtixaan rasmi ah waaye lacagtii mablaqii qalbigu ku qabsaday Allah subhanahu wa ta'ala waa ii sahlay laakiin ilaahay waa imtixaamay isagana waa imtixaamay lacagtii horta waa arkay waa helay waa la ii soo diray laakiin se aniga ma yeelanin aniga marka waxaan idin maqalsiinayaa marka hadda waxay ahayd qoraal waxaan idin maqalsiinayaa qofkii iga soo dabagalay wuxuu leeyahay dhageysta السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأقصى على الشيخين ولا عبد الولي بشير ويا نيكي جينا كاسو عاي ويا ولا halka waxaan kuugu soo diray ninkii lacagta kuugu soo diray Cabdinajiib Cabdisalaan Maxamuud telefonkiisi iyo baasaboorkiisi iyo warqadda uu lacagta ku soo dhiibay diray iyo account-kiisi waan kuugu soo diray waana ninka lagu celinayo way halkii laga soo shubay waa lagu celinayaa meel kale u sii shubmaysi group baan inoo sameeyay oo macluumaad ka dhan soo dhigay groupkan Cabdinajiib waa kula jira macluumaadkana groupkana waa soo dhigaya insha Allah waana originkeedii ma ku celinaysaa meel kale kuma celinaysid waana mahadsantahay sheekh waa nasiib badan hadii lahayn in sheekha maaragtay uu nagu beegay aad iyo aad baan nasiib badan nahay gabadh miskiina waa lahayd oo curyaana Allah waxa weeye ilaahay baa mahad leh u badbaadiyay Allah yaxfadak السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هادو رجيب سو وعي مساجدان كجرا هندا waa ka baxaya hadaan ka soo baxay hadaan wixii rabaa insha Allah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عبد الولي بشيرنا تايم في العياء ولا القالية وكوفي عنها الحمد لله قف كل هذا لا وشيخين والعكتي ما دام ما انت لي اسوا هذا الشيء لما انت العكتي وان يدي سو عليي اوكي كسو بحدي عبد النجيب عبد السلام محمود ايان عليي $20,000 اون $1 aan dhineen ayaan ku celiyay ilaahi alxamd
وانا ما تنتهي ان شاء الله. السلام عليكم. waayahay sidaan ayay wixii ay u dhaceen nimankii lacagtooda markaan siiyey waa maadsantaa xitaa $100 xataa ho layma dhihin anna ma ka dalbanin iyagana iima soo kasin maanta haddii qof $20,000 ku badbaadiyey dadka $2 haddii ay aad ku qalado simkaarkay tuurayaan isla markii $2 ay cunayaan ama ay gadisanayaan Soomaaliya waxaasi way ka jiraan waa ogsoontihiin alxamdulillah rabbil caalamiin lacagtoodii waan u celiyay haddaba aan idin sheega marka waxyaabaha intaan maskaxda aan cadadka maskaxda intaan ku qabsanin waxa aan akhrinayo idin sheega marka awalkii hore hal suurad la akhrin jiray laakiin hal suurad kale idin ku daraya suuratul waaqica hal mar ayaad akhrinaysaa suuratu yaasiin hal mar ayaad akhrinaysaa 100 jeer ayaad waxaad akhrinaysaa yaa razaaq markaad yaa razaaq adiga aad leedahayna cadad ayaad maskaxda ku qabsanaysaa ama maanka aad ku qabanaysaa inaad hesho ama ilaahay uu ku siiyo biidni illaahi alkariim kabacdi waad iska seexanaysaa laakiin adigoo weyse qab ayaad samaynaysaa markaad seexata kabacdi waagi markuu bariyo wixii aad maskaxda ku qabsatay ayaad helaysaa amaba asbaabtii wixii aad ku heli lahayd ayaad helaysaa إن شاء الله بإذن الله الكريم أنت أصلاً كسوق بقبيني واليال إن سدحدي أوبشن إذن سو قد بي هلو سو جوابه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.